بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبدي xubnaha golaha wasiirada madaxda ka socota qaran bixiyayaasha secretariatka SDF madaxda dowladda hay'adaha caalamiga ah iyo martida kale ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halka kan aan ka daahfuro wejigii labaad ee mashruuca SDF mashruucani wuxuu bilaabmay 2013 wejigiisii hore kaasoo ay lagu launch gareeyey ama lagu daahfuray waxaana uu ku qorsheysnaa in uu maalgeliyo qorshaha qaranka ee koowaad mashruuca maalgeliyey dowlado badan oo reer Yuruba oo uu ka mid yahay dowladda Ingiriiska dowladda Denmark iyo dowladda Netherland iyo dowladda Norway mashruucani wuxuu gaar u eegayey qorshaha horumarinta qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka go'aan qaata guddida qorshaha qaranka oo ay ka kooban yihiin dhowr wasaaradood taas oo uu jeergareeyo wasiirka qorshaha iyo horumarinta qaranka wejiga hore ee SDF waxaa laga fuliyey 12 mashruuc oo isugu jira biyaha wadooyinka beeraha xoolaha kalluumaysiga deegaanka caafimaadka waxbarashada iyo dib u habeynta dhulkaba waxaanu qadar ahaa lacaga oo gaadhaysay ilaa iyo 60 milyuun aan idhaahdaba 58 milyuun oo doolar mudanayaal iyo marweyn mashruucan SDF waa mashruuc ka duwan qaabkii hore maxaan ku dhahdaa deeqaha loo siin jiray Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mashruuc ay xukunto oo ay lahaanshihiisa leedahay dowladdu leedahay iyadoo ka qayb galaysa ilaa bilow ilaa dhammaadka waxaa fuliya wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ayaa fuliya waxaana maamula mashruuca dad muwaadiniina oo loogu talagalay inay fuliyaan mudanayaal iyo marweyn waxaynu maanta daahfuraynaa wejigii labaad ee mashruuca kaas oo socon doona ilaa 2023 ka hore wuxuu diiradda saarayey maxaan ku dhahdaa khidamaadka asaasiga sidii aan usoo sheegay waxbarashada iyo caafimaadka iyo ay ka mid yihiin kanina horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayuu maxaan ku dhahdaa xoogga saarayaa waxaa mashruucan maalgeliyey dowladaha Ingiriiska Denmark iyo Netherlands oo aanay qaadhaanka maanta aanay ku jirin dowladdii wejigii hore ka qayb gashay Netherland wuxuu isugu jiraa mashaariic cusub iyo mashaariic ka soo gudubtay wejigii hore ee SDF1 waxaa maamula mashruuca guddi la yidhaahdo guddida midaysan ee mashruuca oo uu guddoomiyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranku ayna ku weheliyaan mid ka mida qaran bixiyayaashu waxaa ka mid ah isaguna wasiirka horumarinta maaliyadda waxa kale oo maamula oo secretariat ama xogeyn u ah waxa la yidhaahdo maamulaha mashruuca oo ah company ingiriisa oo la yahaa McDonald waxaanu rajaynaynaa inuu mashruucani fuliyo waajibaadkan cusub mashaariicdan maanta hor leh iyo kuwii hore ee ka soo gudbay mashruucii hore SDF1 waxaanu rajaynaynaa in mashruucani markuu dhammaado inuu sii socdo mucaawanooyinka iyo wadaqabsiga dowladaha ku bahoobay sanduuqa kan iyadoo kaa dambe uu ku beegmi doono insha Allah haddii la helo
qorshaheena saddexaad ee horumarinta qaranka. haddaan intaa kaga gudbo waxaan madasha ku soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi sidii uu u daahfuro wejigan labaad ee mashruuca SDF. madaxweyne ku soo dhow.